aniga siyaasadda waxaan ku soo biiray runtii 2000 dawladii cartay inta badan xildhibaanada iyo wasiirada maamulkiina Hirshabelle waxa lagu xantaa in ay degan yihiin magaalada Muqdisho oo saldhig u ah bal ka waran iyagu wax shaqo ma hayaan miya xildhibaanada iyo wasiirada waxa keenaa marka dastuurka yani aan faham badan laga haysanin marka dadka Soomaaliya waxay qoraan waa la fahmi karaa laakiin dadka kale waxay yireen cidna macnaheedu ma fahmi karto taasoo in madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ay food isla galaan guddoon baarlamaan iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare in food isla galaan inay xildhibaanada iyo madaxweyne yani waxay keentay iskhilaaf aan dhamaanayn dastuurka wuxuu noqday mashruuc socdo oo hadba qoladii meesha joogta ay meel ku geyso بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وعن دعوة ديال ميل والبو الدنيا كجوكتان waxaadna ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo idinkaga imaanaya magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaasina aad ka daawanaysaan telefishinka Somali Cable waxaana waraysigan gaarka ah ku waraysan doonaa hadii Allah awood laga helo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre oo aan su'aalo dhowr ah oo taariikhdiisa shakhsiyan qofka uu yahay iyo su'aalo kale inta la xiriira maamulka Hirshabelle aan weydiin doono marka hore waxaan jeclahay in aan gudoomiyaha soo dhaweeyo gudoomiyaha ku soo dhaweeyo telefishinka Somali Cable annagoo kaaga mahad celinayna waqtigaada oo aad inoo ogolaatay inaan kula wadaagno iyo waliba ogolaashahaada inaan gurigaada kugu nimaano aan waraysigan kaaga doono aad iyo aad mahadsantihiin TV-ga Somali Cable waad mahadsantihiin waan ku faraxsanahay runtii inaad soo booqataan waana TV-gan waa TV-geeda runtii shaqada aad haysiina aad iyo aad ayaan waxay ahayd ugu faraxsanahay marka hore aad iyo aad aan idin salaamaya waa tahay marka la kaaga mahad celinayna gudoomiye ka hor intaanan waraysigeena guda galin marka hore waxaan jeclahay ilaa 2 daqiiqo in aad taariikhdaadii gomeesha aad ku dhalatay gomeelii kala duwan ayaad ku soo wax baratay ilaa hadda heerka aad taagantahay inaad noogu soo koobto taariikhdaada ka hor intii aniga horta waxaan ku dhashay magaalada macnaha beledweyne 1968 kadibna hadda waxaan ilaa magaalada beledweyne ayaa dadka waxaad ogtihiin in oo ay inta badan Soomaalida asal waxa uu meelaha miyiga aniga waxaan ku dhashay meel u jirta magaalada beledweyne qiyaastii 60 kilomitir quraankan halkaas ayaan ku dhameeyay kadib laba shay ka koobneed mar waxaan ahay nin yani barta diinta yani islaamka qaybaheeda kala duwan sidii maxay ahayd fiqiga iyo ahadiista iyo tafaasiirta iyo arabiyada intaas waxaan ku bartay magaalada beledweyne iyo magaalada xamar iskuulkeydana wuxuu ahaay marka hore wuxuu ahaay magaalada beledweyne kadib hadda waxaan soo gudbay magaalada xamar dugsiga sare ee Sheekh Suufi halkaas ayaan muxuu ahaay ku dhameystay markii dambana hadda waxaan hadda mar labaad muxuu ahaay aqoonteydii ku sii watay ee dalka Yemen jaamacadda Lira al-Ulum wa Teknolojiya qaybta muxuu ahaay sharciyada in badan ardayaan iska hayo oo runtii xagga u badan culumta diinta ilaa uu jiray muxuu ahaay burburkii dalka iyo maxay intii dawladda Soomaaliya qaybteedii ugu dambeysay inta uu weyn hadda waa intaas noloshayda inta badan waxaan joogay gobolka Hiiraan iyo Muqdisho gobolka kale runtii waxbarasho waan u tagay oo dad wax la yiraahdo xirnimada la yiraahdo waan u tagay dalal kala duwan oo dibadda waan tagay oo yani kullaba wax aqoon cross raadina ayaan tagay dalka Yemen dalka Saudi Arabia مصر السودان إثيوبيا هذا ودمن بانو كميد هنا أيان تجي أو عن جيبوتي يو نرويج واتر لكن إيه قصة أقون ومتجين مركا رمتي أنت ساي أو بنات
inta yani kooban oo ah taariikh nololeedkeeda. waa tahay aad u mahadsan tahay Sheekh Cusmaan siyaasadda Soomaaliya goorma ku soo biirtay ka hor inta aan siyaasadda ku soo biirinna maxaad qaban jirtay? runtii aniga siyaasadda waxaan ku soo biiray runtii 2000 dawladii Carte ayaan ku soo biiray. waxay ku horreeyeen waxaan in wax barto hadda yani waliba u badan qaybta diinta u badan oo kutubta iyo waxyaabahaas mudaris kutubta akhriya kutubtan asana loo akhriya ayaan ah. markaas ayaan si rasmi ugu soo biiray. أنا مرة بدن أد أرجع على إيران كبير لكن هذا أقامتي إياه حي وحبرشة أيام أد ووضع سنة يحلي أسكهرة دولة عرت كهرة أنا هذا السياسة أي سنجرين بقاش وارلو أدل كان هايستي اللي بعتب فربنا أيا كجرتي دي بوشي سينتو بعمرك هالشغلة هاد إن الغيب قاطع يعني ما الوقت هذا إني كجرين سياسة بوحدة الدولة ما كجرين لكن كوحيس بقى كجرين مركا سي أنا كوحاس ومن قرن وحاكم من قضي qaybaha maxay ahayd dhaqankii ka shaqeeyay dib u heshiisiinta runtii markii hadda ay xilligii Cartana waxa bilowday kaambeenkii siyaasadeed markaas aan ku soo biiray. waa gartay Sheekh Cusmaan hadda waxaad tahay gudoomiyihii baarlamaanka maamulka Hirshabeelle inta badan xildhibaanada iyo wasiirada maamulkiina Hirshabeelle waxa lagu xantaa in ay degan yihiin magaalada Muqdisho oo ay saldhig u ah bal ka waran iyagu wax shaqo ma hayaan miya xildhibaanada iyo wasiirada? runtii erayadaas waa inuu soo noqnoqdeen laakiin hadda arto waa deganahay magaalada Muqdisho cid walba degan qof kasta oo yani isteedada kamid ah madaxda dhan waxay degan magaalada Muqdisho guriyay ama iyagu leeyihiin ama kiraa ama caruurtooda ayaa degan waa caasimadii Soomaaliya cid kasta ayaa degan laakiin runtii anaga waxaan ugu doonayaa isteedada kale waxaan isku dhownahay caasimadda laakiin hadda waxaad ogtahay inuu madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii labadaba iyo gudoomiyihii ku-xigeenkii koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenkii labaad madaxdii oo dhan in Hirshabeelle ku sugan tahay baarlamaanka intiisa badan Hirshabeelle ku sugan yihiin wasiiradana intooda badan Hirshabeelle ku sugan yihiin marka aniguna safar shaqo ayaan waxaan ku tagay Nairobi waan ka soo laabtay xamar in kooban 10 maalmood ayaan joogay safar shaqo haddana waxaan safar u ahay caasimadii Hirshabeelle dii alla idmo marka wararkaas waxaan iska leeyahay waa warar xoogaha aanan aad iyo aad muxuu ahay meesha qabanin ama aan ku habooneen hal shay baa dadka eegayaan Hirshabeelle iyo Muqdisho dadka degan waa isku dad diris dhawaan waanahay hadda halkan waxa laga yaabaa meesha u dhaxaysa Suudinta u dhaxaysa caasimadda iyo Hirshabeelle inay 10 kilomitir noo jirnaa laga yaabaa oo hadda anay intaan gaari qaata aan inta socdo Hirshabeelle jooga marka dadka waxa iskaga khaldan caasimadda iyo balcad inay iskaga khaldantaan qiyaasa marka Hirshabeelle xuduudeeda ama Suudinteeda aniga nagama foga si la ogyahay intii madaxdii iyo baarlamaanka hadda Hirshabeelle ku sugan marka lama dhihi karo madaxda iyo wasiirada jooga Hirshabeelle macna Muqdisho lama dhihi karo laakiin xildhibaanada iyo golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee Hirshabeelle ma leeyihiin xarumo u gaar ah oo ay ku shiraan oo loogu talagalay Hirshabeelle waxay leeyihiin caasimada Jowhar waxay leedahay xarumo loogu talagalay baarlamaanka uu ku shiro xafiisyadii waxa ku yaala dawladda madaxda sarsare iyo xildhibaanada wasiirada dhammaan yani shaqaalaha dhan hadii waa deegaankoodii oo rasmi ay u deganayeen waxayna ku leeyihiin hadda waa xaruntii lagu shaqeynaa haatan waxa ku sugan madaxweyne ku-xigeenka ku sugan caasimadda Jowhar madaxweynaha wuxuu ku sugan yahay magaalada Beledweyne oo shaqo ka wada xafiisyada xarumaha dawladda ku yaal hadda waa state shaqeynaya hadda goorma u dambeysay kalfadhiga baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle kalfadhiga saddexaad baarlamaanka uu furan yahay baarlamaanka hadda in ka badan 40 xildhibaan ayaa Nairobi muddo 10 maalmood ayaa waxay u maqnaayeen seminar oo aqoon kororsi ah in waa xamal ay soo laabteen qayb way gudubtay qaybna waa insha Allah bari bay tagi doonaan marka shaqada way furan tahay gudoomiyaha ku-xigeenada jooga yani si habsame wanaag u socota waa gartay xildhibaanada Hirshabeelle inta badan waxay ka hadlaan warbaahinta
iyagoo sheegaya in nuushin ay ka wadaan madaxda maamulka Hirshabelle haddana xiisadu way degtaa maxaa soo celceliyay arrimahaasi runtii baarlamaan hadaad maqashid mooshinka waa dastuuri mooshin hadaad aragtid ma aha in wax lagu duminayo mooshin waxaa noqon karaa in sharci in la keeno ay xildhibaan soo gudbiyaan waxaa noqon karaa in lagu xisaabtamo xukuumadda waxaa noqon karta in baarlamaanka dhacaysa uu ku xisaabtamo mooshinada marka ma aha mooshin oo dadka waxay u fahmeen in wax lagu duminayo bis mana jirta hada mooshin aniga aan ogahay ama ha noqoto madaxweyne ama guddoon ha noqoto ama cid kale ha noqoto aniga mooshin hada yani socda aniga ma ogsooni laakiin waxaan ka maqlaa idaacadaha waxaan ka maqlaa Hirshabelle mooshin baa ka socda Hirshabelle hebel baa mooshin laga wadaa xildhibaankana wuxuu yani warkiisa yani uu leeyahay codkiisa iyo muxuu fikirkiisa wuxuu xor u yahay markii uu ku sugan yahay howlka baarlamaanka markaas ayuu codkiisa dhiibtaa fikirkiisa dhiibtaa lagumana eedeeyo markaas wuxuu uu sheegay laakiin haddii intuu nin xildhibaan soo kaca oo idaacad iska taga oo war sheega hadda warkaas muctabar maaha war la fiirinayo maaha waxaan u eegaynaa bise baarlamaanka xaruntiisa codkiisa markaas codkiisa dhiibanaa markaas wuxuu yani uu dhihi karaa waxaas khaldan waxaas toosan halkaas loogu talagalay laakiin haddii nin xildhibaan oo asaga inta idaacad u tago war iska sheega lama oran karo mooshinaa socda iyo mooshinaa la joojiyo lama oran karo anigana ma og hadda mooshin Hirshabelle ka dhex socda shaqaan ogahay inuu madaxweynihii hiiraan joogo madaxweyne ku-xigeenkii jowhar joogo shaqo wado bi fatahaad wixii uu yani ka shaqeeyo haye inay dadaalo kala badan oo Hirshabelle lagu horumar socdaan waxaasana uu ogahay marka mooshinada waxaan idaacadaha waxaan ka maqlaa mooshinaa socda waa la yaabay أنا ضد بايس xildhibaano uu sheegay Soomaaliya ضد بايس ضد بايس waxay قدومي انت صار موشكا صحيح مدحويني لا انت صار موشكا صحيح يعني وايا بنانو هذا مالك سعوده ما idaacadaha صحيح ma naqaan mudane gudoomiye madaxda sare ee maamulka Hirshabelle iyo maamulada hoos yimaada maamulkeena ma wada xiriiraan xiriir noocaas ka dhaxeeya ها مدحويني هذا wuxuu joogaa magaalada Beledweyne magaalada labaad ee caasimadda ganacsiga uu joogaa Beledweyne uu joogaa degmooyinkan hadda inuu soo mari doono waa ila tahay dhowr jeer wafdi waa lagu tagay degmooyinka yani Hirshabelle marka hadii Hirshabelle intii hadda anaga gacanteena ku jirto de anaga maamulno wixii hadda aan gacanteena ka baxsano hadda ay yani koox gaar haystaan haddana hadda si macnawi ayaan waxay ku jirtaa xadka Hirshabelle waa kartay maamulka Hirshabelle waa maamulkii ugu dambeeyay maamul goboleedyada dalka ka jira ee la soo dhisay waxa la dhihi karaa waxa tihiin maamul curduna haddana marka la eego mar waliba xiisad siyaasadeed iyo ataagan hadda waxa ugu dambeysay in beel kamida beelaha maamulka Hirshabelle in ay markaasi kalsoonida kala noqdeen maamulka Hirshabelle ka waran arrimahaasi runtii horta Hirshabelle waa meel ay ka jirto dimuqraadi ka jirto qofka fikirkiisa uu cabiri karo beelaha xor waxay u yihiin inay fikirkooda cabiraan waxay xor u yihiin inay wixii ayaga markaas ay ka cabanayaan inay media ku gudbiyaan waki ilaahay qowlkiisa ku la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man dhulima qofkii dulmi ama in asaga dareemo يعني codkiisu uu macnaha uu diibin karaa taa marka waxay ugu jeedaan anuusan isleeyahay in maamulka soo jeediyaan oo ay yiraahdaan in la maqlo la yiraahdo wuxuu ahaay dabaashaas way cabanaysaa waxa laga yaabaa in badan in cabashada la maqlo waay ay marka dambe heerkaas gaarsiistay marka ay soo jeedin tahay wada hadalkan waa u socdaa oo dabaashaas iyo beelo kale lamid ah wada hadalkooda waa socdaa malihin beelahaas yani khalad ay u hadlayaan ma lihin laakiin waxaan isku daynaa insha Allah taala in xal la gaaro iyana hadda waxaan leenahay yani waxaad ka cabanaysiin Hirshabelle adankaas kale waxaad ka cabanaysiin waa la xalin doonaa insha Allah taala kalsoonida waxaan leeyahay naga noqono yani kalsoonida inoo soo celiyo waxa jirta maamulka Hirshabelle in ay ku nool yihiin dad badan oo danyara oo markaas aad u danyar
oo meelo kala duwan ugu nool haddii aan labada gobol shabeellada dhexe iyo weliba gobolka Hiiraan xilliyada roobka oo kale ka waran dadkaas ma ka warhaysaan ramadaankii sidoo kale inta soo dhow xilli roobeedna waa lagu jiraa dadkaasi ma ka warhaysaan xaaladooda nololeed horta Hiiraan iyo Shabeelle dhaxadeen Hirshabeelle labadaas gobol waa soo gudbay magaca waxay leeyihiin Hirshabeelle marka gobolkan waxa la yiraahdaa gobolka Hiiraan iyo Hirshabeelle magaatida gobolka Hiiraan gobol inta fiican birigi labada gobol ay ahayn dad ma ah Hirshabeelle la isku yiraahdaa waa sax dad dan yar way ku nool yihiin runtii wixii ana karaankeena ah hada waxba kala ma harno waxada aniga inaga baxsan waxaan la kaashanaa on dadka Hirshabeelle u dhashay xoolaha haysto iyo jaariyadooda gudaha iyo dibadda wixii jooga dawladda Soomaaliya hay'adaha caalamiga hadba cidii wax taakulayn karta inay taakulayaan ayaan ka codsanaa dadkan iyaga laftoodii inay istaakulayaan oo deegaanada istaakulayaan waxa waaye waa ku boorinaa marka runtii taas aad iyo aad muxuu ahaay waxunahay in dadkaas dhibaato gaarto aniga meesha aan joogno laakiin waxa keenay maamul hadda curdun ah oo aan wali wax badan ay u suurta gelin wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho waxa ka muuqata burbur xoogan ka waran maamulkiina maxaa ugu qorshaysan wadadaasi runtii horta wadadaas si markii loo eego ma xirno daraad waxaa maray madaxweyne ku-xigeenka maray waxaa dareemi kartaa markii wadadaas inaysan xirneen anoo dilaftay in maraa laga yaabaa laakiin marmar dhib inay ka yimaado oo ay soo gabato waa laga yaabaa oo ay yiraahdaan bal waa maadaama wadada dheer ay tahay oo aan aad u dhisneen inay koox ka faa'iideysto iska macquul waa laakiin waxaan leeyahay wadada hadda Hirshabeelle wax balaayo ah oo ka baxsan dalka Soomaaliya dhibaato ka baxsan Hirshabeelle ma haysto hadda markii Hirshabeelle aniga qiyaaska markaan ka sameeyo mustawaha ama heerka ay maanta joogto iyo inta jirta markii la fiiriyo inay Hirshabeelle tahay meesha uu fiican garaafka uu fiican inay joogto marka si baarlamaankeeda u shaqeeyo markaad fiiriso sida hadda maamulada heer gobol iyo heer degmo u shaqeeyo markaad fiiriso si wasiiradeeda iyo qaabka u shaqeeyaan markaad fiiriso isdhexgalka bulshada يعني اسكو دulqaadashada rabitaanka maamul jaceelka markaad fiiriso runtii waxaad leedahay Hirshabeelle ya amaan bay mudan tahay leedahay muxuu ahaay mas'uuliyiinteeda iyo oo dhan oo yani baarlamaanka uu ku yahay baarlamaan shaqeynayo xukuumad la xisaabtamayo asaga la xisaabtamayo runtii baarlamaan aad u firfircoon iyo mas'uuliyiintiisaba Hirshabeelle leedahay waxaan leeyahay hadda waa lagu faan karaa Hirshabeelle qof walba هذا Hirshabeelle oo kale inuu yiraahdo ay mudan waa gartay ma jirtaa maamulada kale waxa kaga duwantiin oo mudan in ay idinku daydaan horta maamulada kale isku da'mani waxyaabaha hadda aan sheegay kamid ah maamulada kale waxa laga yaabaa in sanad ama 2 sano laga horeeyaan waxyaabaha kamid ah anaga aan ugu doonahay waxaan ansixinay miisaaniyadii oo yani Hirshabeelle anagoo joogna sanad iyo wax yar waxaan la xisaabtanay xukuumadda heer waxaan gaarsiinay madaxweynihii uu yani meesha ka baxa madaxweynihii hore taan waxa keentay xisaabtana keentay waxa kaloo hadda meesha ku jira in baarlamaanka Hirshabeelle uu yahay baarlamaan curdun ah oo aan haysan waxyaabihii loo baahnay aan haysan hatta shaqadaas uu qabtay waxaan ugu doonayaa in waxaan joognaa caasimadeena Hirshabeelle Hirshabeelle caasimadeeda sharciyeedan joognaa caasimadii labaadna waa beledweyne waa tagnaa maamulada qaar waxay joogaan caasimadooda aan joogno taasna meel kale caasimado ama degmooyin ay caasimad u yihiin ama ay gobol kale caasimad u yihiin ku meel gaar anagu caasimadeena aan joognaa inta badan degmooyinkeena yani waa maamulnaa marka lafteeda guul in caasimadeena aan joogno ku shaqeynayno waxyaabaha ugu doona taasna waxay ku timid kasbashada dadka shacabka ah iyo aragtida dheer ee muxuu ahaay mas'uuliyiinta Hirshabeelle ay ku timid iskama imaano caasimadda in isku joogo iskama imaano xagga waxbarashada iyo caafimaadka waxyaabaha bulshada asaasiga ah ayay kamid tahay
waa sida waxbarashada iyo xagga caafimaadka deegaanada maamulkeena Hirshabeelle. horta Hirshabeelle marka hore waxa ku yaala xarumo maxalli ah ku yaala oo dad gaar ay leeyihiin oo reer Hirshabeelle ah. waxay ogtahay xilligii dowladda Soomaaliya ay burburtay dadka iskooda isku abaabuleen xarumihii hadda waaweynaayo caafimaadkana way furihiin laakiin xarumo kale badan oo gaar loo leeyahay ayaa aad u shaqeeya oo aan iskaashanaa iyagana dowladnimada aad u jecel wixii hadda oo ah baraafada iyo wixii dowladba intaba waxaan leeyahay mar qiyaas la sameeyay hadda markii laga reebo caasimadda iyo Puntland inta kale yani waxbarashada dadka ugu sareeyay kamid yihiin Hirshabeelle iskuulada xagga iyo tayada mid loo fiiriyo anagana hore waxaan jeclahay in hore sii wadno inaan dib u noqono ma jecelin dadkana waxay awl haystaan in wax u daran ma weyn inaan wax ka dhinna ma jecelin dalka waxaa ka jira dhowr maamul goboleed oo adig ka qayb ka tihiin kuwa qaar diris ay idin leeyihiin bal ka waran maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira iska warhaysan runtii aan sii warhaynaa maxaa yeelay shalay iyo daraad waxaa socda shir loo hadlayo arrimaha dastuurka anu qaybaan ka ahayn anu qayb gal waliga cazumay guddiga dastuurka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa qayb ka ah madasha shir halka lagu sameeyay yani ay ka yihiin qayb ay ka yihiin guddiga kalena oo idan heer muxuu ahay dowlad goboleed aan xubin waa jirta inta anu aan jaar ka nahay waxa kamid galmudug igan xiriir fiican naga dhaxeeyo waxa kamid South West kamid ama koonfur galbeed igan hadda dhowr jeer aan meesha tagnaa booqasho in xiriir fiican naga dhaxeeyo waraha kale igan Puntland iyo Jubbaland igan xiriir waxaan leenahay diblomaasiyadeed oo isku aragti baan ka nahay hawlaha siyaasiga isku aragti baan ka nahay oo igana baarlamaan ahaan isku shaqaanahay waan kulnaa waan ka iska warqabnaa yani waa kala xog warnaa waxaan leeyahay nimankaasu wada shaqeyn aad yani u dheer ayaa naga dhaxayso waa gartay gudoomiye Cismaan dabcan shirkii labadii maalin ugu dambeysay magaalada Muqdisho ugu socday gudiyada dastuurka heer maamul goboleed iyo heer federaal waad joogtay waxyaabaha is dhihi karto runtii shirkaasi waa laga dhaxlay oo suurtagal ah oo bulshada iyo ummadda Soomaaliyeed badan ugu jirto waxa kamid dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed runtii waxa ragaaday khilaaf siyaasi ah oo ay ku jiraan gacmo shisheeye fara badan markana waxa asal u ah in qofka yani sharciga asal u ah ka sareeyo marka waxa loo hadlayo waxa sharciyada dastuurka iyo dib u eegistiisa dastuurka hadii meesha yaal ama dastuurka hadda jooga maxaa ka khaldan si marka loo wada qayb qaato ay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo dhammaan uga qayb qaataan Soomaaliya oo dhan ayaa waxaa la isugu yimid yani fikir isweydaarsi si dastuurkaasi 2020 ka hor muddo 12 bilood gudahood in dib u eegistiisii lagu soo afjaro kadibna haddana dastuurada dowlad goboleedyada iyo asaga haddana isku wada ay maraan dalka inuu institution qor u yeesho oo yani waxtar leh inuu yeesho arkaysa hadda hal xarafaa meel ku yaal khilaafku waxa keenay dowladda shisheeye ayaa qori jiray ama ayaa dadku umeerin jiray marka dadkii Soomaaliya qoorta la wada galeen iyo gacmaha oo leeyahay qolba leeyahay waxa lagu tuntay dastuurka marka uu cad yahay oo tafsiirkiisa iyo hawsha ay caddahay yani cidna ma oran karin waa lagu tuntay waxa keenay marka dastuurka yani aan faham badan laga haysanin marka dadka Soomaaliya waxay qoraan waa la fahmi karaa laakiin dad kale waxay yireen cidna macnaheedu ma fahmi karto taasoo in madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ay food isla galaan guddoon baarlamaan iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare in food isla galaan inay xildhibaanada iyo madaxweyne yani waxay keentay iskhilaaf aan dhamaanayn dastuurka wuxuu noqday mashruuc socdo oo had boqoladii meesha joogta ay meel ku geyso oo aan dhamaaninba marka shalay waxyaabaha laga hadlayo waxa kamid ah inuu dhamaado dastuurkaas inuu meel ku joogsado يعني فكر Soomaaliya iyo maal Soomaaliya in lagu qoro dastuurkaas wax ka dhiman aftida loo qaadi doono hadhinaata laakiin dib ugistiis in meel yani la fahmi karo in la gaarsiiyo intaas ayaa ugu muhiimsan ugu dambeyntii qaybihii dambe ee wareysigeena ayaa isla soo gaarnay
bal ka waran ummadda Soomaaliyeed siba dadka deegaanada mas'uuliyadeeda aad haysaan oo Hirshabeelle ku sugan ku daawanaysa maxaad fariin u diri lahayd wallahi ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay marka ugu horeysa ay midoobaan oo dalka ay ka shaqeeyaan midnimada dalka Soomaaliya iyo iskaashiga iyo inay dawladnimada Soomaaliya taageeraan wixii khaldan hadda wada hadal lagu xalliyo ummadda reer Hirshabeelle waxaan leeyahay Hirshabeelle khilaaf iyo يعني uma baahna iyo maanta meesha ay joogto waxyaabo badan oo lagu mashquulo ayaa jirto Hirshabeelle baanta u baahan tahay oo horumarka Hirshabeelle waxaan soo jeedinayaa marka inay gacmaha isqabsadaan Hirshabeelle qof malasha dawladnimada hadaad maqasho waa shacabka Hirshabeelle waxaan leeyahay dawladda Hirshabeelle adinka iskale dawladdeena toosista meeshii ka qaloocan tahay ka toosiya wixii wanaagsan garab istaaga Hirshabeelle cidna male qofna male qofofna male shakhsiyaad gaar ah male Hirshabeelle iskale waxaan leeyahay Hirshabeelle hala barbar istaaga wixii ka qaldan laga saxa wixii saxana hore loo wado intaas ayaan reer Hirshabeelle ugu baaqaa dawlad xumay waxay ka fiican tahay dawlad la'aan ka fiican tahay waxay reer Hirshabeelle og yihiin inay in badan kursigooda u banaanay ee lagu matalay dawlad goboleedyada hadda maanta waxa muhiim u ah inay yani kursigooda uusan banaaneen oo yani la matalayo shakhsigana bani aadamka anagu khaldami karaa shakhsiyaadku way khaldami karaan laakiin in la saxa muhiim ah wixii la saxi waayo de waa isku iman doonaan wax dhibaato ama qofkii yani ama shakhsiyaadkii la saxi waayo de ma aha meesha meel oo yani dadka ay yani shacaba iskale laakiin wax intii wax la saxi kara waxa wanaagsan in wax la sax ayaa wanaagsan anuguna waxaan u nahay anu lafteeda waxaan ogolahay hadii khaldana in la sax ana ogol madaxda kale يعني in la saxa ogol يعني bani aadamkana waxa ku fiican yahay in khaladkiisa loo sheego la saxa aad u fiican tahay laakiin qofka hadii la saxino markiiba يعني tawriid wadnaha laga saaro iyo lafteeda waxay keenay qof walba inuu saas يعني tawriid wadnaha laga saaray tagaysa marka waxaan leeyahay in la isku dul qaato ayaa wanaagsan wixii khaldan la saxa waa tahay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre ayuu ahaa guud ahaan waxaan jeclahay waraysigeena intaas ku soo gabagabeeyo aad ka daawanayseen telefishinka Somali Cable tan inta kulmi doono waraysigan kan xiga waa anigu Cabdulqaadir iyo Faarax Maxamed Aadan Faarax UK oo xagga kaamirada iyo farsamada waraysiga intuu socday naga saacideeyay tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh